haddaba si aynu u falanqeyno xaaladan Uganda iyo Soomaaliya waxa studio ay ugula sugan Cabdullaahi Axmed Camey oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ma la yaabtay hadalkan Museveni uu sheegay hadalka Museveni marka hore inaan eegnaa meeshu ka yiri wuxuu la doonayay inuu yiraahdo marna ma doonayn Soomaaliya inuu si gooni ah u ataaga balse qof walba Soomaaliya uu dhibsanaya hadal noocaas balka xaqiiq baa jirta in Soomaaliya ay tahay wadan adduunka wadil u aqoonsan yahay inay tahay wadan saaqidnimada markay timaado adduunka sida loo tiri fail state-ka inaan xag hore kaga jirno laakiin marka laga soo tago wadan dagaal ka dhaceen inuu yahay inuu erayga yiraahdo wax dawlad ah kama jirto iyo nidaam iyo wax maamula si xogaa kuma xad gudbin dabcan qof walba Soomaali way dhibaysaa laakiin xaqiiqda maxay ninkan waxa ka jooga ciidamo dhowr iyo 10 kun isaga ugu ciidan badan waxa jooga xaqiiqdii waddanka la socda inay magaalada Muqdisho ay dawladii gacan buuxda ku wada heenin xuduudii ayuu maanta wasiirka arrimaha dibadda jooga oo Kenya laga hadlayaa xaqiiq iska cad u soo umana maleynaya inuu siyaasad doonayay isaga wuxuu sharxayay si academic kale wuxuu u sharxayay waxa la yiraahdo nation of state iyo dawlad iyo wadan waxay kala yiraahdaan Soomaaliya waa wadan buu yiri laakiin dawlad kama jirto yiri laakiin inuu yiraahdo qaar kalena way jiraan laakiin diblomaasiyadan uga yar xishoonaya inaan ka hadlo uma sinaanin Soomaaliya waxa intaas oo wadan oo Soomaaliya kaliya aan ahayn laakiin burbursan dabcan marka aad eegtid xarumaha ugu waaweyn ee qabka Soomaaliyeed inay tahay in la ilaaliyo madaxtooyadii airportkii takadii ciidamadiisa baa ilaalinaya Muqdisho marka privilege buu isagu haystaa inuu ilaa xad wuxuu doono waddankayga ka dhigi doono annagay noo taala in aan ka shaqeyno dawladdeeda in ciidanka ay naga baxaan dib u heshiisiin waddanka ka dib weyn dawladda soo hadal qaaday dawladdu jawaab ay ka bixisay sidaan arkayna wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya BBC-du la hadlay wuxuu yiri annagu waxba naga ma galin cid iska qaylisa iska hadasha waxa daliil cad u ah uu yiri in wasiirkii arrimaha dibadda Kenya aan maanta isla joogno Mandera marka inay hadalkaas ku jawaabaan dhanka dawladda iyaga ma la filayay dawladda waayahanba waxay ku jirtay wax la yiraahdo siyaasad arrimo dibadeed iska caabina oo ismuujina dabcan dad badan oo Soomaaliyeed waxa arintan keenay inay aad u faafteen waxa dad Soomaaliyeed ba doonaya inay dib Soomaaliya u soo noolaato laakiin dadka Soomaaliyeed mararka qaar kood madaxda iyo dawladda ayaa la xaqiiqda ka fogeynayaan oo halka aan taaganahay inaan aragno tabartayda aan garanno deetana markaas adduunka saa kula macaamilna ay tahay runtii inaan wajahno weeyaan Soomaaliya awoodeeda halka bay taala ciidamo Ugandese oo dhowr iyo 10 kun ayaa Muqdisho iyo gobolada Muqdisho ku hareeraysan jooga iyaga waddanka kala haya amniga Soomaaliya iyaga gacantooda ku jira taa weeyaan ay tahay in wasiirkayga iyo madaxdayda ay waan gartay dadka Soomaaliyeed dhamaantood dawladda Soomaaliya ka hadashay ayaan tan waxa tiri siyaasadda arrimaha dibadda ee xoog bay saaraysay ayaan dhaweydna wixii dhex maray iyagii waan ogeyn qaramada midoobay jawaabtii oo kala ah inay yiraahdaan suurtagal ma ahayd oo ama xiriirkan u jarnay inkastoo warqadan been abuur ay ahayd laakiin inay soo baxdo macquulba ma aha waata aan lahaa imika madaxtooyadii bay ilaalinayaan madaxweynaha amnigiisa gacanta ku hayaan prime ministerka gacanta ku hayaan xuduudda magaalada Muqdisho amnigeeda hadii ay laakiin amaankii gacanta ku hayaan taas micnaheeda maaha Soomaaliya aysan dawlad ka jirin may dawlad Soomaaliya way ka jirtaa oo adduunka aqoonsan yahay laakiin waxa la yiraahdo imperial sovereignty wax gacanta lagu taaban karo oo maxay ahayd sovereignty ah Soomaaliya gacanta maanta kuma jirto xuduudii buu wasiirka arrimaha dibadda maanta jooga wuxuu ka hadlayaa Kenya iyo wuxuu kala hadlayaa si xuduudan dalalka uu qariyo uusan sheegin kuwaad isleedahay way dabcan way jiraan dalal badan baa jira markii leedahay waxa jira adduunka wax cabir sanad walba soo baxa annaga ayaa xagga hore saaqidnimada ka galna South Sudan baa ku soo xigta Iraq baa imika dib uga baxaysa Afghanistan baa ku jirta wadamo badan ka jira laakiin isaga awood buu u leeyahay Museveni markay Soomaaliya timaado dabcan maadaama ciidamadiisa madaxdayna ilaalinayo inuu sidaa yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdullaahi Axmed Camey oo studio-ha nooga falanqeynaya arrintaasi